diblomaasiyiin Soomaaliyeed iyo boqolaal arday Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay 40 guuradii ka soo wareegatay markii Djibouti ay xornimada qaadatay taasoo ka dhacday magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. wariyahayaga Yuusuf Macalin Maxamed ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray Khartoum. munaasabadan oo ahayd mid lagu xusiyay 40 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada qaateen Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay ka dhacday caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan. waxaana ka soo qayb galay munaasabada madax ka socotay safaaradda Djibouti, diblomaasiyiin ka socotay safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, jaaliyadda Salaadiin, boqolaal ka mid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Suudaan iyo qaar ka mid ah ciidamada Djibouti ee tababarka u jooga wadanka Suudaan. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay danjiraha safaaradda Jamhuuriyadda Djibouti ee furaya dalka Suudaan, danjire Axmed Cali Barre, isagoo u mahadceliyay dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabada xuska 40 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimada qaateen. dadaalkii aad keenteen waa idinka arkaya maanta uu 40 jirsaday. mahadnaq weyn baan ii soo jeedinaynaa. waxaan leenahayna waxaan u rajaynaynaa Soomaaliya nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo. anoo hadalka ku raagay oo soo koobaya murtida waxaan dhammaan halkan salaan uga diraynaa dowladdeena madaxeega sare mudane Ismaaciil Cumar Geelle. dhanka kale Abuukar Maxamed Cabdi Baston oo konsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa hambali u diray dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Djibouti. jaaliyadda Soomaaliyeed ee caawa halkan ku sugan iyo safaaradda Soomaaliyeed dhammaan diblomaasiyiinteeda intaba waxaan halkan hambali uga direynaa jamhuuriyadda aan walaalnahay ee Djibouti iyadoo caawa dabaaldegaysa sanad guuradii 40aad ee ka soo wareegatay tan iyo intii Djibouti ay heshay xornimadeeda, taasoo aan filayo in dhiig badan uu soo daatay. caawana ay halkan ay farxadii dabaaldegga sanad guuradii 40aad shacabka reer Djibouti ay ugu dabaaldegayaan, annagana ka jaaliyad ahaan ka safaarad ahaan aan ugu hambalyeynayno farxaddaas weyn ayaan caawa aanu jecelnahay walaalahayna reer Djibouti hiil walaalo in aan la wadaagno farxaddaas iyada. intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay heeso iyo dhaqanka qowmiyadaha Jamhuuriyadda Djibouti. يوسف محمد معلم كبير 40 قرق عاصمة